maanta oo ay taariikhdu tahay bishii afraad 16keedii halka kan jaajuur dhan 500 oo xabo waxaan ku wareejinaynaa dhalinyarta la magac baxday nala dhis oo nala dhamee oo uguna tala gashay fayskii labaad ee garoonka ama taarabuunkii aniga oo 500 xabo jaajuurka ah uga wakiil ah shirkadda daabacadda xayeysiinta casriga ah ee Asajad kuna hadlaya afka magaca Asajad waxaan leenahay deeq baa ku regeed baa leeyay waxaan sheegayaa ganacsatada gobolka ku nool qorankan waa ayaheeni nololeed waa kii dhalinyarta waa mustaqbal waa sharaftii gobolka ganacsato in wax ka dhigta haddii ay nusqaaminsan waxaan nusqaamisa ilaahay ku rooyahay ganacsato marka ganacsatada waxaan leeyahay waa dhalinyarta marka koobaad way naga jeesanaysaa marka labaad ubadkaagii magacbaad uga tagaysaa Britooleenkaagii garoonku uu ku ciyaaraya ta saddexaad ganacsatada damacaanka oo iska farabaday xitaa inaga macaanka iska saarayna dhowr faa'iido ay garoonkii inoo leeyahay qurba joogna waxaan leeyahay war darag baa ku regeedii burcana waa burco halka ka tagtay halka ka tagteen dhalinyartan sheegaya dhalinyartii sportska marka iyagana waxaan leeyahay waa garoon gobolkiini wax dib ugu soo celiya khaasatan garoonka imaka dhalinyartan nala dhiso nala dhamee gacanta ka haysta gudoomiyahana uu ka yahay Maxamed Cabdi Xirsi wixii hooyahilaba la garab istaago garoonka hal ugu darsado si ay daanaan hortoodan ugu kacno nacalabeeleyne marka waxaan farayaa waa dhalinyarta la shaqeeyo dhalinyarta isxilqaantay iska wuxuu qabsay wax ku wadaan waa dhalinyarada la shaqeeyo ganacsatayna hala shaqeeyo waxaan kale anigu gudida u sheegaya gudoomiyada faraya haddii aanu nahno shirkadda Asajad marka hore anigu waxaan u taaganahay garab istaagga dhalinyarta sportska imako kaliya anigu wax ku darsamayno mar dambe mar daba ku darsanayna maanta ay taariikhdu tahay 16kii bishii afraad 2019 waxa baaqi aanu baryahanba wadnay ee ahaa nala dhis oo nala dhamee walaal ka soo jawaabay shirkadda daabacadda casriga ah ee Asajad oo ah shirkadaha gobolka Togdheer kuwa ugu mudan ee mar walba garab taagan dhalinyarada gobolka tusa inay garab taagan yihiin la wadaaga hiil iyo hoo tala iyo tusaalaba waxaan u sheegayaa bulshooyinka reer Soomaaliland gaar ahaan bulshooyinka gobolka Togdheer shirkadda daabacadda ee Asajad inay tahay mid kaalin muhiim ah oo miisaan leh ugu jirta dhalinyarada gobolka Togdheer hawl kasta oo ay ula yimaadaan la fulisa haday fiisida tahay haday garoomo tahay iyo haday dhanka waxbarashada tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba uga mahad celinaynaa oo aan ka gudoon annagoo ah dhalinyarada iskeed soo dirtay isuma dirtay ismaha danta guuda kana hawl gashay shirkadda daabacadda ee casriga ah Asajad 500 milo jaajuura oo kaga qayb qaadanaysa fayska labaad ee garoonka oo ah taarabuunkii oo noo bilaabmay meel wacan maraya wax badan oo wacan aan hayno wax badan oo wacan ay dhiman yihiin waxaan u sheegayaa anoo ka faa'iideysanaya shirkadda daabacadda ee Asajad baaqa aan wadnay ee ka soo jawaabtay sida sharafta iyo qiimaha leeyahay soo jawaabtay waxaan u diray ganacsatada kale ee gobolka Togdheer inay sida ay soo direen ay noo soo garab istaageen ee ay hiil iyo hooban ugu keeneen shirkadda daabacadda ee casriga ah Asajad inay noo soo garab istaagtaan noo keentaan wixii ay haysan ku darsataan garoonka manfaca u ah dhalinyaradeena jiilka maanta jooga iyo kuwa soo dhalan doonaba qurbajoogti gobolkana waxaan leeyahay war qurbajoogay gobolkii waa gobolkii burcana waa burcadii waan insha Allah billahi karim wax rajaynaa iyada oo sidii aan kaga tagteen si ka bedelana inaan u timaadaan ku soo darsada garoonkan wixii karaankiina ah waxaan idinku soo gabagabeynayaa hadal inagu haddaynu nasiib u weynay garoon aynu ku ciyaarno oo nala dhiso dhalinyarada maanta joogta nasiib ha u hesho garoon aynu dhisno iyagu ay ku ciyaaraan